madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada Soomaaliland bilad uu xaq u lahaa ku guddoonsiiyay ciyaaryahan Cabdicasiis Aadan Cumar oo loo garan og yahay Cabdicasiis Gacan kana mid ahaa xulkii gobolka Daadmareed ee 16 bishii 11 2020 tirsiga miilaadiga ku guuleystay koobkii gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland ee kubadda cagta oo maalintaasi kaga maqnaa ciyaartii kama dambaysta ahayd dhaawac culus oo ka soo gaadhay lugta midig oo uu ka jabay. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo ka duulaya dhiirigelinta da'yarta dalka kana jawaabaya codsiga hore madaxweynaha warbaahinta u soo mariyay ciyaaryahan Cabdicasiis Aadan waxa uu maanta madaxweynuhu guddoonsiiyay laba abaalmarinood oo kala ah ciyaartoygii ugu fiicnaa ciyaaryahanadii xulka gobolka Daadmareed oo loo doortay isaga iyo guddoonsiinta bilad sharaf ahayd ciyaaryahanadii iskugu soo hadhay kama dambaysta koobkii gobolada Soomaaliland oo madaxweynuhu maanta qoorta u suray ciyaaryahanka sidoo kalena uu saxeexay garankii uu xidhanayay xulkiisa gobolka Daadmareed. waa kan Cabdicasiis Aadan Cumar Cabdicasiis Gacan oo ka dareen celinaya kulanka uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee qasriga madaxtooyada waxaanu yiri runtii dareenka markii hore dareenkaygu aad buu kacsan yahay maalintii koowaad iyo markaan media ka hadlayba runtii madaxweynaha markaan qorayna dareenkaygu runtii aad buu kacay runtii madaxweynaha qaranka waa madax meel la taabto madax meel ka sareyso oo la taabtaa ma jiro waa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii wuxuu ugu qaabilay si wanaagsan garankii uu saxeexay biladii uu geliyay sidii aan ka dalbaday uu yeelay marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha kulanka Cabdicasiis Gacan iyo madaxweynaha Soomaaliland waxaa ku wehelinayay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Yuusuf Mire Maxamed Boos, wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta mudane Jaamac Xaaji Maxamuud Cigaal, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbul xaakimka kulmiye Axmed Cabdi Xuseen loona garan og yahay Axmed Cabdi Dheere iyo taliyaha guud ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale. Axmed Taye Qaran, wararka Malcab, magaalada Hargeysa.